Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa Sharmaake Media Channel oo ka soo jeediya toddobaadka Soomaaliin dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobadiisa kala duwan oo maanta aan marayno qodobka 12aad ee ka hadli doona kheyraadka. Marka haddaan doonaya inaan bilaabo haddii la ka dhigo hantida guud ee kheyraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka dalka wadaniga ah. Dhulku waa hanti guud oo ka dhexeeya ummadda, mas'uuliyadna dowladdu leh. Xeerka labaad, daryeelka iyo ilaalinta maalka iyo awqaafta iyo hantida guud ee waajibaadka ka saaran dowladda iyo muwaadiniinta, waxaana ay xeerkaasi qeexaya. 3. Xukuumaddu waxay awood u leedahay in ay yeelato gacanta ku hayso hantida guurto ama maguurtada ah, in ay iibiso, kirayso, ku beddelato qiime u dhigma ama ku saameysa hantidaas tasarruf kasta oo sharciga waafaqsan. 4. Kheyraadka dabiiciga ah ee dalka waxaa mas'uul ka ah dowladda dhexe, waxaana ay qaadaysaa tallaabo kasta oo suurto gal ah si loo baadho loogana faa'iideysto kheyraadka ku jira bariga iyo badda dalka. Ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah iyo sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo. Xeer ayaa qeexaya. 5. Hantida guud ee lahaanshaheeda ama ka faa'iideysigeeda loo baahdo in loo wareejiyo waxay ku wareejin kartaa si xeerka waafaqsan. 6. Dowladdu waxa ay dhiirrigelinaysaa wax soo saarka wadaniga ah sida beeraha, xoolaha nool, kalluunka iyo macdanta, fanka, xabagta iyo warshadaha ku shaqeeya wax soo saarka wadaniga ah. 7. Sekadu waa rukniga Islaami ah, habeynteedana waxaa caddaynaya xeer gaar ah. Allahumma salli ala Muhammad. Inkastoo af-Soomaaligu uu dheer yahay ama uu yaryahay oo aan akhriyano si aan u ilaalino qoraalka qofka sida loo qoray, ilaalinada sharciga sida yahay loo dhigay inaad ugu dhaqanto ayaan sidaa ugu ilaalinayna oon xabad ugu saarana insha Allah tacaala. Markaa waan qodobkii 12aad hadda isticmaali doontaan haddii la ka dhigo aan nimankan soo gudbin doonaa. Markaa sidaa iyo habeen wanaagsan oo nala socda. Subscribe-kana badiya, share-tana badiya, comment-gana badiya. Wixii aad araare ee cilad meel naga haysto aad noogu sheegtaan, feedback soo bixisaan si aan u ogaano meelaha khaladka nooga soo sheega haddii la ka dhigo, si aan ugu saxno waxyaabaha khaldan ee nagu noqoto aqoon ama waayo-aragnimo. Anigu intii karaankayga waan soo gudbinay, intii karaankayga soo gudbiya haddii la ka dhigo. Sidaa nabadgelyo yaa ismaqal daba xiisa leh.